ugu dambeyntii waa la toogtay dilayga weynaa ku noolaa Baydhabo wuxuu dhawaan dilay Allah u naxariistay marxuumad Aamino Maxamuud Malaaq ku nooleed Baydhabo ahna ahayd ganacsate ka shaqeysa suuqa Baydhabo. Ninkan dilka geystay waxaa lagu magacaabaa Maxamed Xasan Maxamed kuna noolaa isla Baydhabo. Dilkani wuxuu geystay kadib markii la weydiistay lacago ku lahayd Allah u naxariistay marxuumad Aamino Maxamuud Malaaq wuxuuna ku balaamiyay gurigiisa asigoo u sheegay inuu lacagta heli karin laakiin uu siin doono gurigiisa. Ugu dambeyntii gabadhii waxay u dhaqaaqday gurigii ninka dilayga ahaa. halkaasi markay tagtay waxay la kulantay arin mucjiso ah ugu dambeyntina ku weysay nafteeda. Allah u naxariistay marxuumadan waxaa lagu sheegay in lagu dilay toori dabadeedna lagu riday boosaneerka. waxaa ka dambeeyay Maxamed Xasan Maxamed oo ugu dambeyntii dilay gabadha. laamaha amaanka ku nool Baydhabo markii ay sameeyeen baaritaano dheer kadib waxay meedka gabadhan ka soo saareen boosaneer ku yaalo guriga gacan ku dhiglaha asagoo markaasina la horkeenay maxkamadda asagoo qirtay dambiga in uu galay asagoona ugu dambeyntii lagu toogtay meel fagaara ah oo isku imaadeen dadweyne fara badan oo soo daawasho tagay dilkiisa. haddaan ugu cusubtaa nagu soo bir saaxiibadaada la wadaag YouTube-ka subscribe noo saar Facebook-ga follow dheh waad ku mahadsan tahay soo joogistaada.